بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu aali cimraan. waxaa noogu soo dembaysay ilaahay inuu yidhi haddii aad tihiin kuwa ilaahay jecel ani isoo raaca. ilaahay wuu idin jeclaanayaa, dembigiinnana markaa wuu dhaafayaa. ilaahay waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan. ilaahay ateeca, rasuulkana ateeca. haddiise aad jeesataan fa ina allaha laa yuxibu alkaafiriin. ilaahay kaafiriinta mid jecel ma ahoo, ilaahay kaafiriinta ma jecla subxaana wa tacaala. ilaahay ateeca, rasuulkana ateeca. haddaad jeesataan fa ina allaha laa yuxibu alkaafiriin. ina allaha istafaa aadama wa nuuxan. ina allaha ilaahay istafaa waa uu doortay aadama, aadam ayuu doortay, wa nuuxan nebi nuux ayuu doortay, wa aala ibraahiima, ibraahiim ahelkiisiina wuu doortay, wa aala cimraana, cimraan ahelkiisiina ilaahay cala alcaalamiina, caalamka dushii ayuu ka doortay subxaanahu wa tacaala. ilaahay cid allaala cidduu doona ayuu doortaa. ina allaha istafaa, ilaahay wuu doortay malaa'igta, rasul buu ka doortay, bani aadamkana rasul buu ka doortay. sidaa darteed baana loo tilmaamayaa oo na la leeyahay ina allaha ilaahay istafaa waa uu doortay aadama, aadam buu doortay, wa nuuxan nebi nuux ayuu doortay, wa aala ibraahiima, ibraahiim ahelkiisiina wuu doortay, wa aala cimraana, cimraan ahelkiisiina cala alcaalamiina, caalamkii zamankaa jiray ayuu ilaahay ka doortay. duriyatan waa caruur, bacduhaa qaarkood min bacdin qaarka kale ka ahaatay. waa ilmo isdhalay. duriyatan bacduhaa min bacd. wallaahu ilaahayna samiicun, alla samiicahoo maqal badan buu ahaaday. caliimun, caliim ahoo haddana cilmi badan. id waqti balxus qaalad ay tiri imra'atu cimraana, cimraan naagtiisa, xaaskii cimraan waqti ay tiri xus buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. id waqti xus qaalad ay tiri imra'atu cimraana, cimraan xaaskiisa, rabbi rabbiyow innii anigu nadartu waan nadaray, laka adiga waxaan sharad kuugu galay, maa fii batnii waxa calooshayda ahaaday ee ilmee ku jira, muxararan ku la xoreeyey inuu yahay. shaqadii guriga iyo wax allaala waxaan u dirsan lahaa baan ka xoreeyo, cibaadadaada iyo beydkaagaan u xoreeyee, fataqabbal minnii allow iga aqbal xaggayga, waayo innaka adiga anta adigu assamiicu, alla samiicahoo maqal badan ayaa tahay, alcaliimu cilmina badane. cimraan waa maryamo aabbaheed, wa maryama bnata cimraana alatii axsanat farjaha. hooyadeed wax maysan dhalin baa la yidhi. maalin baa waxay aragtay shimbir ilmihiisa la ciyaaraya, aad bay u jeclaysatay inay owlaad lahaan lahayd. rabbi ayay aad io aad u bariday subxaana wa tacaala, waxayna nadar ugu gashay haddii ilaahay owlaad siiyo ilmahaasi inay diinta u xoraynayso, in baytulmaqdis ay u xorayn doonto, inayse shaqo iyo waxaasoo dhan ay ka xorayn doonto. mar allaala markiisaa ay dhacdaa dhiiggii caadada ku dhacay, way ka qubaysatay, odageedii baa u galmooday, uur bay markaa qaaday. falilaahi alxamdu. uur bay markaa qaaday. xamnata binti faaquuda ayaa la odhan jiray. qolaa tiri ilaahay baa yaqaana magaceeda wuxuu ahaa. sidaa darteed tiibuu rabbi noo tilmaamayaa qisadii oo bilaabatay. id waqti qaalat imra'atu,
ay tiri imra'adii iyo afadii iyo xaaskii cimraan naagtiisa rabbiyow innii anigu nadartu waxaan u nadaray laka adiga maa fii batnii waxa calooshayda ku sugan muxararan ku la xoreeyey inuu yahay ee fataqabbal minii rabbow iga aqbal xaggayga waayo innaka anta adigu assamiicu alla maqal badan ayaa tahay alcaliimu ee cilmi badane falammaa wadacathaa markay dejisay macnaha waa markii ay dhashay qaalat waxay tiri rabbiyow innii anigu wadactuhaa waxaan dhalay oo aan dhigay unhaa dhadig wiil waa islahayd waayo wiilka beydku wuu ka khidmayn karaa oo dhiig caadaa kuma dhaco wiilku waa ka shaqayn karaa oo dacwada aad buu uga shaqayn karaa mar allaala markay ogaatay inay unha dhashay horayna ay nadar u gashay inay canuga xorayn doonto yay rabbi la hadasho waxay tidhi rabbiyow falammaa goortii wadacathaa ay dhigtay ama ay dhashay qaalat waxay tidhi rabbiyow innii anigu wadactuhaa waxaan dhalay unhaa gabar baan dhalay tidhi wallaahu aclamu bimaa wadacat ilaahayna wuxuu ahaa alla ku cilmi badan oo og wixii ay dhashay wallaahu aclamu ilaahay waa alla ku cilmi badan oo uga ogaal badan bimaa wadacad waxay dhashay walaysa adakaru dakarkuna ma aha kal unhaa sida dhadiga oo kale wiilkasuu u qidmeeya gabadhu uma qidmayn karto dakarkii unhahana isku mid ma ahan bay tiri wa innii anigu sammaytuhaa waan magacaabay gabadhii aan dhalay waxaan u bixiyey sammaytuhaa maryamaan ku magac daray wa innii anigu uciiduhaa waan magangeliyey bika adigaan ku magangeliyey gabadhan wadurriyatahaa carruurtii ay dhali doontana min ashaytaani alrajiimi shaytaanka rajiimkee la fogeeyey ayaan kaa magangeliyey rabbiyow maryama hooyadeed markay dhashay ogaatay inay dhadig dhashay bay rabbi u ashtakooto waxay tiri allow unhaan dhalay rabbi ayay u tilmaamaysaa bacdamaa ay horayna u nadartay waxa ay filaysayna wiil ahaa yay tiri rabbiyow innii wadactuhaa allow waxaan dhigan oo aan dhalay unha wallaahu aclamu ilaahayna alla u cilmi badan waaye bimaa wadacad waxay dhashay walaysa adakaru labkuna kal unhaa dhadiga la mid ma aha wa innii sammaytuhaa anigu waxaan ugu magac daray bay tiri gabadhii aan dhalayna maryama wa innii anigu uciiduhaa waan ku magangeliyey gabadha bika adigaan ku magangeliyey ayada iyo wadurriyatahaa carruurteedaba min ashaytaani alrajiimi shaytaankii rajiimka ahaa ayaan kaa magangeliyey waayo shaytaanku xaalad kasta bani aadamka inuu ku xaadiro oo uu la socdo ayuu jecel yahay haddaan layska xijaabin haddaadan guriga bisinka ku gelin wuu kula soo geli raashinka haddaadan bisinka ku magacaabin wuu kula cuni xaasku haddaadan bisinka ka qabsanin wuu kula galmoon owlaadda markay dhalanayaan bannaankuu u taagan yahay mawluud kastii canug kasta oo la dhala sow ma arkin asagoo qaylinayuu soo baxaa shaydaan baa gujiya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuu duraa ilaa ciise iyo hooyadii maahane labadaa way ka badbaadeen waayo ilaahay baa u aqbalay hooyadeed baryihii ay bariday iyo magangelkii ay magangelisay rabbi wa innii uciiduhaa ilaahow gabadha waan magangeliyey bika adigaan ku magangeliyey iyo wadurriyatahaa ilmaha ay dhali doontaba min ashaytaani alrajiim shaytaanka rajiimkaan kaa magangeliyey fataqabbalahaa wuu ka aqbalay rabbuhaa rabbigeed biqabuulin qubuul io aqbalitaan xasanin ee wanaagsan wa ambatahaa wuu barbaariyey alla wuu dhaliyey nabaatan barbaarin iyo dhalin xasanan ee wanaagsan wa kafalahaa waxaa kafaalay gabadhii maryamo ahayd zakariya nebi zakariya kafaalay kullamaa mar kasta oo dakhala uu u soo gala calayhaa dusheeda zakariya nebi zakariya inantii yarayd almixraaba
mixraabkii iyo mawlicii ay ku jirtay markuu ugu soo galaba wajada wuxuu helaa cindahaa agteeda risqan raashin. risqi meel uu ka yimid iyo cid keentay aan la ogayn ayuu ka ag arkaa. qaala wuxuu yidhi yaa maryamu maryamay annaa laki haadaa ka xaggee buu kaaga ahaaday? yaa kuu keenay xaggee buu kaaga sugnaaday? annaa laki xaggee buu kaaga ahaaday maryamay? haadaa midkani waa inan yaroo hadda caananuug ahoo aan weli hadal gaarin. qaalad waxay tidhi huwa asagu min cindi illaahi alla agtiisuu iiga ahaaday. waayo ina allaha ilaahee yarsuqu waa quudiyaa oo wuu arsuqaa man yashaa'u qofkii uu doono bikayri xisaabin xisaab la'aane. mar allaala markii ay soo dhashay waatay horay u nadartay inay xorayso. qirqo iyo maro intay ku soo duubtay bay aqayaartii dhex keentay way dhex dhigtay. waxay u sheegtay nadarkii ay nadartay inay bal gabadhaa kafaalaanay barbaariyaanoo diinta loo hibeeyo. ilaahay baa ka aqbalay fataqabbalahaa rabbuhaa rabbigeed baa aqbalay biqubuulin xasanin qubuul wanaagsan. wa ambatahaa gabadhiina wuu barbaariyey oo wuu akhlaaq wanaajiyey nabaatan xasanan barbaar iyo koritaan iyo nabaad dhalad ahoo wanaagsan. wa kafalahaa zakariya kafaalay. weli waa laysku qabtayoo aqayaartii oo dhan mid kastoo ka mida wuxuu jeclaa inuu asaga barbaariyo. laakiin way noo imaan doontaa bakhtiyaa nasiib baa lagu soo baxay oo lagu kala baxay. nin walba qalinkiisii qorigiisuu keenay, magaciisii baa lagu qoray, baddaa lagu tuuray. kii qorigiisa soo baxaa korinayaa la yidhi. zakariyaa soo baxay kiisa. zakariyaa kafaalay, habaryarteedna waa uu qabay baa la yidhi. wa kafalahaa zakariyaa kafaalo qaaday kullamaa mar kasta oo dakhala uu u soo gala calayhaa dusheeda zakariya almixraaba mixraabka uu ugu soo gala inantii yareed ee maryamo ahayd. wajada cindaha agteeduu ka helaa risqan raashin. qaala wuxuu yidhi yaa maryamu wuu yaabay. maryamay annee laki haadaa xaggee kan kaaga ahaaday? qaalad waxay tidhi huwa min cindi illaahi ilaahay agtiisa. waayo ina allaha ilaahee yarsuqu wuu arsuqaa oo wuu quudiyaa man yashaa'u qofkii uu doono bikayri xisaabin xisaab la'aan ayuu ilaahay quudinayaa. zakariya fursad buu u arkay, caqiim buu ahaa. naagtiisana ma dhasho ayay ahayd oo wax ma dhalin. xaaladdaas ayuu ku cibro qaatay. wuu fakeray gabadhaa yar ee aan hadal ka gaarin, caananuugga ah, shabaqan ku dhex jirta, allihii risqi u keenay inuu wax kasta awoodi karo. asagoo horay u aaminsanaa ayuu cibro u arkay. isla markii waa uu ka faa'iidaystay fursaddii. hunaalika meesha ayuu dacaa tuugay zakariya rabbahu rabbigii. qaala wuxuu yidhi rabbiyow hablii ii hibay oo iga sii min ladunka agtaada durriyatan ilmo tayibatan oo fiican. annagu ilmuun baan iska barinaa, wiilii caanii gabadhi caana saan u lahayn. yaa ilmo caanadaadii gabdho caanadaadii alla nagu arsuqay. saa darteed mar allaala marka owlaadda la baryaya waxaa laga baryaa durriyatan tayibatan. waayo innaka adiga samiicu ducaa alla ducada maqla ayaa tahay. fanaadathu way u soo dhawaaqday oo waxaa u soo naadisay zakariya almalaa'ikatu malaa'igtii. waxaal huwa qaa'imun uu yahay kii taagan oo yusallii tukanaya fi lmixraabi mixraabkuu ku tukanayay. xilligaa owlaadda uu baryaya zakariya khamri ma cabsanayn, xumaanna ma ag joogin, faalisana ma ag fadhin. rabbigii buu hortaagnaa subxaana wa tacaala. waa sida loo baahan yahay. dhakhtar baannu hor taagannahay, umusibiyaan naagaha naagta ka gubta ayaannu ag taagannahay. owlaadna waa dalbaynaa, looma baahna. fanaadathu waxaa u soo dhawaaqday almalaa'ikatu malaa'igtii. ilan jawaabtii baa u timid. waxaal huwa asagoo qaa'imun taagan oo yusallii ku tukanaya fi lmixraabi mixraabka dhexdiisa. waxay tidhi malaa'igtii anna allaaha ilaahay yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa biyaxyaa wiil yaxya la dhaho inaad dhali doonto. musadiqan rumaynahaya bikelimatin kelimad oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay. wasayidan
sayid asagoo ah wa xasuuran mid la xabisay asagoo ah mid la shiray oo xaaraan oo dhan laga xabisay qaaraa waxay dheen guurkaa laga xabiso muusan gursan wa nebiyan nebi asagoo ah oo min asaalixiina saalixiinta markaa ka mid ah qaala zakariya markay bishaaradii u timid wuxuu yidhi rabbiyow annaa yakuunu sidee buu iigu ahaanayaa lii aniga ghulaamun wiil waqad balaganii aydii oo ay i gaartay alkibaru gabow iyo weynaan waimra'atii naagtayduna caaqirun ay tahay ma dhasho aniga kibar baan ku jiraa gabow baan ku jiraa naagtayda waa caaqiroo ma dhasho waaye see owlaad noogu sugnaanaysaa mana la yaryaraynayaa asoo iska socda muu ibaadaya waimra'atii caaqir qaala wuxuu yidhi ilaahay kadaalika arrintu waa sida amarku saa waaye zakariyow allaahu alle yafcalu wuxuu falaa maa yashaa'u wixii uu doono qaala wuxuu yidhi haddana rabbiyow ijcal lii ii yeel aayatan calaamad aan ku garta ilmaha inay soo socdaan ama ay calool galeen qaala ilaahay wuxuu yidhi aayatuka aayaddaadu waxa waaye anlaa tukallima annaasa inaadan dadka la warramin oo aadan la hadlin 3 ayaamin 3 maalmood ilaa ramsan farfiiq maahane farfiiq iyo ishaare inaad dadka kula hadasho ma ahee haddaad calaamaddaa isku arkood hadli weyso oo dadka hadalkoodu kaa xayirmo owlaaddaa inay dhalanayaan bay calaamo kuu tahay qaala rabbi ijcal lii qaala wuxuu yidhi rabbiyow ijcal lii ii yeel aayatan aayad iyo calaamo aan ku garto owlaadda dhalashadooda qaala wuxuu yidhi aayatuka aayaddaadu waxay tahay anlaa tukallima annaasa inaadan dadka la hadlin 3 ayaamin 3 maalmood ilaa ramsan ishaaro maahane waxa ka xirmaya waa hadalka dadka laakiin dikriga alleh tasbiixda iyo salaadda way u furan tahay wadkur rabbaka rabbigaana xus kafiiran in badan wasabbix tasbiixsa bilcashiyi galabtii iyo walibkaari subxiiba waid qaalat ilmalaa'ikatu wadkur xus id waqti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tiri yaa maryamu maryamay ina allaaha ilaahay ina allaaha istafaaki alla wuu ku doortay waطaharaki wuu ku tahiray waاstafaaki waxa uu kaa doortay calaa nisaa'i alcaalamiin caalamka dumarkooda oonka dhan dumarka jooga ayaa lagaa doortay waxa suuragal ah ilan dumar ka fadli badan way jiraane dumarkii zamankeeda jiray in markaa laga doortay waid qaalat ilmalaa'ikatu waxaad xustaa wakhti malaa'igtii ay tiri yaa maryamu maryamoy ina allaaha ilaahay istafaaki wuu ku doortay waطaharaki wuuna ku tahiray qolaa waxay dheen xataa dhiigga xaydka kumuusan dhicin laakiin say noqotaba wax kastoo adnaas iyo wasaq iyo dembi iyo dunuubba alla ka dahiray wastafaaki wuxuu kaa doortay calaa nisaa'i alcaalamiin caalamka dumarka jooga oo dhan ayuu ilaahay kaa doortay subxaana wa tacaala ee yaa maryamu maryamay uqnutii atiic lirabbiki rabbigaa oo wasjudii sujuud oo warkaci rukuuc oo maca araakiciina kuwa rukuucaya micigooda la rukuuc daalika arrintaana min anbaa'i alghaybi waa qaybka wararkiisa waxyaabaha maqan wararkooda waaye nuuxiihi waan kuu waxyoonaynaa rasuulkii allow ilayka xaggaaga wamaa kunta maadan ahayn ladayhim agtooda id waqti yulquuna ay tuuranahayeen aqlaamtooda wakhtigii qoryaha magacooda ku qornaa qofkii korin lahaa badda lagu tuurahayay iyo webiga sidii mid allaala midka u soo horbaxa uu asagu u koriyo adigu ma aadan joogin sababta aad ugu sheegaysa waa waxyi xaggeenna kaaga yimid daalika arrintaa min anbaa'i alghaybi haybka wararkiisii waaye nuuxiihi waan waxyoonaynaa ilayka xaggaaga wamaa kunta maadan ahayn rasuulkii allow ladayhim agtooda id wakhtigii yulquuna ay ridahayeenay tuuranahayeen aqlaamahum qalimadooda aqlaamahum ayuhum koodee yakfulu kafaali lahaa maryama midka maryamo kafaali lahaa ee gacanta ku qaban lahaa ee korin lahaa wakhtigii ay rabeen in midkii soo baxa loo dhiibo wakhtiga adigu maadan joogin ayuhum koodee yakfulu kafaali lahaa maryama wamaa kunta
maadan ahayn ladayhim agtooda id yakhtasimuuna markay doodayeen id waqti balxus qaalad ay tiri almalaa'ikatu malaa'igtii yaa maryamu maryamoy id qaalat almalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha alla yubashiruki wuxuu kugu bishaaraynayaa bikelimatin kelimad minhu asaga xaggiisa ka ahaatay ismuhu magaciisana almasiixu masiixu ahaa waa kii barakaysnaa waa ciise oo ibnu maryama canugeeda ahaa wajiihan xaal uu yahay mid sharaf leh jaah iyo wejina ku leh fi dunya adduunka waalaakhirati aakhiro wa min almuqarabiina kuwa muqarabiintee la soo dhoweeyana ka mid ah ciisaa laguu bishaareeyey masiix baa lagu magacaabaa wax intuu masaxo ayuu noolaan jiray caafimaad heli jiray ilaahay idinkii ama waa kii barakaysnaa dajaalna masiix baa lagu magacaabaayoo isha midigtuu ka masaxan yahay sidaa darteed buu ilaahay yidhi ninkaas kaasaa laguu bishaareeyeyoo waa ciisa bnu maryama aabba ma laha waa ciisihii ina maryamo ahaa wajiihan fi ddunya adduunkuu jahku leeyahay waalaakhirati iyo aakhiraba wa min almuqarabiina kuwa la soo dhoweeyeyna wuu ka mid yahay waalaakhirati aakhirana jah iyo sharaf buu ku leeyahay wa min almuqarabiinana wuu ka mid yahay wayukallimu annaasa dadkuu la hadlayaa ciise fi lmahdi asagoo dhab ku jira ah wa kahlan iyo garmadow sida dhabta markuu ku jiree markaa la dhalo oo u hadlayo waxay la mid tahay sida markuu garmadow yahay uu hadlayo kale wayukallimu annaasa dadkii buu la hadlayaa fi lmahdi mahdiga asagoo ku jira dharagta waa gogosha yaree ciyaalka umusha loo dhigo ama waa dhab ku jire wa kahlan asagoo garmadow ah wa min alsaalixiina mid saalixiinta ka mid ahna ah waa saalix oo min alsaalixiin saalixiinta markaa ka mid ah qaalad waxay tidhi waa maryame rabbigeeyow annaa sideebaa yakuunu lii uu iigu ahaanayaa anigu waladun walad ilaahu seen owlaad u dhalaya walam yamsasnii imuusan taaban basharun bashare wax bani aadam oo ila galmooday oo aan galmo samaynay ma jiro see canugu dhalaa bay tiri ilaahayow waayo da'biga dhaqanka caadada sida la hubee la arkay waxaa lagu dhalaa qofka ninka iyo naagtu markii ay kulmaan rabbina owlaad uu ka dhex qadaro inantani waa ugub waxawaaye waa gabar bikra ah weli wax guursaday mala jiro walam yamsasnii markay leedahay waxay ishaaraysaa wax jimaac igu sameeyey uusan markaa jirin way noo imaan doontaa suuratu maryama markaan qisadeeda gaarno dhalashada nebi ciise laga sheekayn doono xataa markay cunuga ayadoo wadata qoomkeedii ula timid maxay dhaheen yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki baqiya maxaggee baad ka keentay canuga aad iyo aad bay ula hadleen walam yamsasnii basharun qaala ilaah wuxuu yidhi kadaaliki amarku waa sida allaahu ilaahayna yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaa'u wixii uu doono waxaan wax culus ma aha idaa qadaa markuu xukminayo ilaahay amran amar uu xukminayo fa innamaa in kale maahee yaquulu waa odhanayaa ilaahay lahu arrintii kun ahaw buu leeyahay fayakuunu waana ahaanayaa arrintii ahaw buu ilaahay odhanayaa isla markii arrintu way dhacaysaa idan wax weyn maba ahanba wax culus iyo howl u baahan maba ahanba ilaahay hadduu shay doono fa innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu waana noqonayaa maa khalqukum walaa bacثukum ilaa ka nafsin waaxid khalqigiinnii abuurkiinnii soo saaritaankiinnu ma aha ilaa hal naf abuurkeeda oo kale maahane sidaa darteed buu ilaahay odhanayaa subxaanahu wa tacaala maryamay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ku tiri rabbi annaa yakuunu lii waladun see ani walad iigu ahaanaya walam yamsasnii asaguusan itaabanin basharun bashar iyo bani aadam qaale wuxuu yidhi ilaahay kadaaliki maryamay arrintu waa sida rabbi saasuu wax u qadaray allaahu yakhluqu ilaahay wuu khalqaa oo wuu abuuraa maa yashaa'u wixii uu doono idaa qadaa markuu xukmiyo amran amar uu rabo inuu xukmiyana fa innamaa yaquulu wuxuu u odhanayaa lahu amarkii iyo wixii uu rabay inuu sameeyo kun ahaw fayakuunu waana ahaanayaa wayucallimuhu wuxuu barayaa ilaahay wiilkaa lagu siinahayo
alkitaaba kitaabkii buu barayaa waalxikmata xikmadii buu barayaa waaltawraata towraad ayuu barayaa iyo waalinjiila kitaabkii injiilba. wiilkaa lagu siinaya maryamay khayr badan baa ku suganoo wayucallimuhu ilaahay wuxuu ku tacliiminayaa uu barayaa alkitaaba qoraalkaa suuragal in loola jeedo sida wax loo qoro, waalxikmata xikmada iyo wax kala saaridda, waaltawraata waalinjiila towraad iyo injiil, wa rasuulan waxaannu ka yeelnay rasuulan wajacalnaa rasuulan wa rasuulan waa rasuul oo ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil u socdoo loo dirahayo. rasuul reer bani israa'iil ah waaye wuxuu leeyahay annii anigu qad ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin aayad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay reer bani israa'iilay. annii anigu akhluqu waan abuurayaa lakum adinka min adtiini xagga dhoobada. abuurkan wuxuu la jeedaa wuu qaabaynayaa oo wuxuu u qaabaynayaa dhoobada xaggeeda ka hay'ati tayri sidii sansaan shimbir oo kale, qaab shimbireed oo kalaan dhoobada ka samaynaya. gabdhaha dhoocilada ah ee yaryarka ah meelaha caramadowda markuu roobku ku da'o yay lacbada iyo cayaartoodii ku ciyaaraan. intay soo qaadaan bay dhoobada marna ka sameeyaan dheri, marnay ka sameeyaan sariir, marna noocaasoo kale. waa tiiyoo kaleo wuxuu yidhi annii akhluqu waan qaabaynayaa oo waxaan abuurayaa oon ka samaynayaa lakum adinka min adtiini dhoobada xaggeeda ka hay'ati tayri qaab iyo sansaan shimbireed, fa anfukhu markaasaan afuufayaa fiihi dhexdiisa, fa yakuunu wuu ahaanayaa tayran shimbir biidni illaahi ilaahay idinkiisa. wa ubri'u waxaan daawaynayaa alakmaha midka indhala'aanta ku dhashiy, waalabrasa midka baraska iyo jirgo'go'a ku dhaca. intuu saa u masaxuu noo dhahayaa ilaahay idinkii ku bogso, waana bogsoonayaa. wa uxyi almawtaa waxa dhintayna waan noolaynayaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa. qabriga intuu taguu leeya qum yaa fulaan biidni illaah, kac hebelow ilaahay idinkii markaasuu kacayaa. wa uxyi almawtaa biidni illaahi baan ku noolaynayaa. wa unabbi'ukum waxaan idiin warramayaa bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan iyo wamaa taddakhiruuna waxaad ku kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiina. waxaad cunaysaan iyo waxaad kaydinaysaan labadabana waan idiin warramayaa. waxaad cunaysaan iyo waxaad kaydinaysaan fii buyuutikum. inna fii daalika arrintaana la aayatan aayad baa lakum adinka idinkugu sugan oo idinkugu jirta in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniin ahoo rumaynhaya. war rumeeya waxaanoo dhan waa cibro iyo aayade, waa calaamad ilaahay idinkugu talagalay. wa musaddiqan waan rumaynayaa limaa bayna yadaya, wa musaddiqan xaal aan ahay kii rumaynaya limaa bayna yadaya wixii hortayda ahaaday oo min altawraati kitaabkii towraad ah. waliuxilla iyo inaan idiin xalaaleeya lakum adinka bacda aladii kii qayb ka mid ah xurrima la xaaraantinimeeyey calaykum korkiina. ilaan reer bani israa'iil waxyaabo fara badan baa kibir iyo qooq ay sameeyeen dartood looga xaaraantinimeeyey. qur'aankaa noo keeni doona, wayna noo imaan doontaa. waliuxilla iyo inaan idiin xalaaleeyaa la ii soo diray lakum adinka bacda aladii kii qayb ka mid ah xurrima la xaaraantinimeeyey calaykum korkiina. waji'tukum waxaan idinla imid biaayatin aayad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaataya. fattaquu llaaha alla ka cabsada, wa atiicuunii anigana yo ateeco imaqla. war ilaahay ka cabsada anigana yo ateeca waaya. ina allaaha ilaahay rabbii rabbigay waaye, wa rabbukum rabbigiinnana wuu yahaye. facbuduuhu caabuda. haadaa midkani siraadun waddo waaye mustaqiimun oo toosane. inaad ilaahay keligii caabudaan oo rabbigiin ah rabbigay ah waa jidka mustaqiimkaa. ina allaaha ilaahay rabbii waa rabbigay, wa rabbukum rabbigiinnana wuu yahaye. facbuduuhu caabuda. ma ihi wiil ilaah, anna ilaah ma ihi, garac iyo wacalna ma ihi. ina allaaha rabbii ilaahay rabbigay waayo addoon allaan ahay. wa rabbukum rabbigiin waa ilaahaye. facbuduuhu caabuda. war allaha ani iyo idinkaba rabbiga noo ah caabuda. haadaa kaa siraatun waa jide kaa ah in ilaah keliya la caabudo
ووضو مستقيم مركا توصني جدك مستقيم كأهكاواي أرنتا لإماذا فلما أحس عيسى منهم الكفر وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.